kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybta 448aad ee barnaamijka Tubta Nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. aad baad u mahadsantahay Faisa. maantana waxaan barnaamijka uga hadlaynaa mowduuc aad muhiim ugu ah dadka Soomaaliyeed kaasoo ah dhisidda Soomaaliya oo nabdoon. waa sax midaasi Cabdicasiis laga bilaabo jidadka mashquulka badan ee Muqdisho ilaa iyo tuulooyinka kala duwan ee dalka. waxaa jira hal shay oo Soomaali oo dhami hilow u qabaan, nabad ka hana qaada Soomaaliya. nabad micnaheedu ma ahan oo keliya in dagaalku maqan yahay, balse waa in midnimo, cadaalad iyo fursad la abuuro. waa rii ay in badani ku haminayaan dadka Soomaaliyeed, laakiin muddo dheer la gaari waayey. maadaama ay ka soo kabanayso sannado badan oo colaado ah, waxay Soomaaliya ku sii durkaysaa xasilooni ballaaran maalinba maalinta ka dambaysa. dhab ahaantii dhabaha ay Soomaaliya qaaday waxaa astaan u ah awoodda iyo adkaysiga dadka Soomaaliyeed iyo hamiga ay u qabaan dib u heshiisiin qaran, horumar iyo nabad waarta. dabcan wadada nabadda ma ahan mid fudud, caqabado badan ayaa weli taagan. waxaa ka mid ah dagaalada qabiilka, xasilooni la-aan siyaasadeed, amni darro, culeysyo dhaqaale iyo dhibaato ka dhalatay isbeddelka cimilada. laakiin waxaa xusid mudan in la garwaaqsaday in Soomaaliya ay dooratay rajo ay u qabto nabad waarta. rajadu waa shay awood badan balse u baahan ficilkaasina ma ahan mid ku imaanaya aamusnaan. rajadu waxay ku abuurantaa wadahadal, isfaham iyo iskaashi. nabaddu waxay baraartaa marka dadku isxushmeeyaan, isdhegaystaan, wadahadalkana ay ka doortaan kala qaybsanaanta. aad iyo aad taasina waa sababta ay bulshada muhiimka ugu tahay nabadda. odayaasha, haweenka, dhalinyarada, culummada, shakhsiyaadka naafanimada la nool iyo bulshada rayidka ah dhammaantood kaalin ayay nabadda ka ciyaaraan, iyadoo loo marayo meelo badan, ha ahaato kulamada nabadda ee tuulooyinka, baraha bulshada, fanka, waxbarashada ama u qareemidda nabadda. qof kasta wuxuu noqon karaa nabad dhise. Soomaaliyana dhabahan keligeed ma marayso. qaramada midoobay oo adeegsanaysa UNTMIS iyo hay-adaheeda kala duwan waxay halkan u joogtaa iskaashiga ay la leedahay dowladda Soomaaliyeed si loogu adeego dadka Soomaaliyeed, iyadoo ka taageeraysa dhinacyada wadahadallada siyaasadeed, isla markaana caawinaysa hay-adaha federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada, xoojinaysa hannaanka dimuqraadiyadda, una ololeynaysa nidaam maamul oo loo dhan yahay. taasi waa sax. qaramada midoobay waxay taageeraysaa dib u habeynta amniga, sarreynta sharciga, ilaalinta xuquuqda aadanaha, horumarinta iyo kaalmada bini'aadanimada ee Soomaaliya. dadaaladan dhammaantood hal yool ayay hiigsanayaan, waa sidii loo heli lahaa Soomaaliya oo aysan nabaddu ka ahayn mid nugul, balse ay tahay mid ku taagan sinaan iyo cadaalad dhidibbo adag leh. nabaddu ma ahan wax hal mar dhaca, waa ballanqaad aan dhammaanteen gelayno. waxay u baahan tahay odayaal hormuud u ah dib u heshiisiin, dhallinyaro wadda ololeyaal dhijitaal ah oo dhammaantood looga gol leeyahay xaqiijinta nabadda. nabaddu adiga ayay kaa bilaabataa, aniga ayay iga bilaabataa, dhammaanteen ayay naga bilaabataa. haddaba annagoo arrimahan imaanka ku hayna waxaa istuudiyaha nagula sugan laba ruux oo in badan ka soo shaqeeyey arrimaha nabadda Soomaaliya. waa Maxamed Sheekh Saciid, gudoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug, iyo Zamzam Maxamed Aadan oo barnaamijyada u qaabilsan hay-adda Calma Relief Development Organization. maxamed, haddii aan adiga kugu bilowno, aragtidaada maxay nabadda u yaqaanaan dadka Soomaaliyeed? goormo ayuu qofka Soomaaliga ahi dhihi karaa waxaa jirta nabad? waxaa la dhihi karaa nabad baa jirta marka khilaaf iyo rabshad iyo dhibaato aysan jirin, marka dadku ay cadaalad heli karaan, qof walbaba wixii xuquuqa ka maqan meel uu u maro si nabadgelya u heli karo. dadka Soomaaliyeedna nabad waxay u yaqaanaan sidaas si lamid ah marka dagaal qabiil isu taagnayn, mid waxaa waaye shisheeye oo dadku haya isu taagnayn, qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo hantidiisa uga baqaya midna usan jirin, uu si nabadgelya intuu caawa gurigiisa ugu soo xarooday beris waxna uga bixi karo. sidaas dadka Soomaaliyeed nabad u yaqaanaan. maxay yihiin caqabadaha aad la kulanto shaqo ahaan iyo shakhsi ahaanba marka aad ku howlan tahay nabadeynta gobolka Mudug? marka howlaha nabadeynta ku jirna waxaa la kulnaa caqabado badan. ay ka mid tahay in lagugu caayo, lagugu sumcad dilo, waayo dad shaqadooda weeye waxa aad faragelinaysaa. kuwa colaadda iyo nabad darrada ka macaasha, kuwaasi markii adiga aad nabadda hadalkeed soo qaadid waxaa la leeyahay kan waa jooweyste, kan waxa waaye ujeedadu ka leeyahay, isus buu ka rabaa. waxay rabaa noqoto wax kastoo horta magac dila oo kala kulmaysaa. laba caqabada waxaa ka mid ah caqabada meelaha miyiga fogfog iyo mararka la aadayo kale inaysan mararka qaar aysan saamaxayno
suurtagal ahayn dhinaca transportationka iyo waxyaabaha la xiriira dartooda iyo meelaha qaar oo waddooyin fiican aan lahayn. taas maana caqabadaha ay ka mid tahay. waxaa caqabadaha ka mid ah dadkii laftirkooda markaa u tagtay wacyigooda usan sarreyn oo fariintaada aan hore ka qaadanayn. haddaa fariin inta gudbisay waqti dheer usoo martay meel timid dadka fariinta la wadaagtay aysan hore laga qaadan laftirkeeda caqabaday noqon kartaa. waxaasoo dhan waxaa u gudubnaa maaragtay adkaysi iyo dulqaad iyo maaragtay meel kastoo dadkeenu jiro inaan ay naga go'an tahay fariinta inaan gaarsiino ka dhalinyar ahaan. haddii ay ku magac dilaan iyo haddii ay maaragtay qaarkood ka hor istaagaan meesha u socoto la yidhaha aadi maysid reebel aadi maysid maleysiya beelad ba laga yaaba inaad ka hor istaagto amnigaaga ay khatar geliso. marka waxaasna waxaa ugu gudubnaa inaan ognahay fariinta aan sinno iyo nabadda muhiimadda ay leedahay ayna u baahan tahay in maaragtay sacrifice badan loo sameeyo inaan nafteena iyo maalkeena u horno. adkaysigaas iyo dulqaadkaas ayaan kaga gudubnaa caqabadaha na soo wajaha markii nabadda aan ka shaqaynayno. manala wadaagi kartaa tusaalayaal muujinaya guul ay horseeday shaqadiina nabadeed ama ay xalisay xasarad taagneed oo ay isku soo dhoweysay bulsho? waxa ugu weyn oo success historiga u muuqda waa gaalkacyo oo dadkeedu isdiriri jireen sanad walba arrimo siyaasadeed dagaalada ay ku jiri jireen inay hadda maaragtay isdhexgal fiican is aaminaad ay ka jirto. taasna waxay ku timid doorka dhalinyarada iyo wacyigelinta ay qaateen. dadka in la isfahansiiyo kulamo ay ku wada hadlaan loo qabto foorumyo loo sameeyo la doodo meeshii maaragtay cadawga la iska aaminsanaan jiray isdhexgal la sameeyo qolaba dhinaca kale maaragtay aan geyno codsiin agoon aan qabanno si agoontii jiilasha soo koraysa maaragtay muqdada iyo colaadda iyo kala qaybsanaanta ay uga badbaadaan. foorumyo kale oo bandhig buugaag iyo peace week wax la yidhahda la qabto iyo platformyo kale oo maaragtay dadka maskaxdooda garaadkooda u kobcinayo. marka waxa ugu weyn oo sheekada ugu weyn noo qabsoonta ay tahay waxaa weeye gaalkacyo oo derbi cagaaran khadka cagaaran wax la yidhahda ku jiri jiray maanta inuusan ka jirin. hadda waxaa arkaysaa wacyigii bulshada intuu soo kordhay in qofkii fidna wada ay bulshadu isku si iskaga wada qabanayaan. waayo bulshada waxay deeransan yihiin inay bulsho mid ay yihiin hal magaalo degan yihiin. qofka magaaladan dab ku shidaana guri walba oo dabka u gaarayo. sidoo kale baadiyaha wacyigelin badan baan ka samaynay. tusaale waxaan kaa soo aqray 2018 waxaan tagnay bariga gobolka mudug meel la yidhahdo jeexdin iyo laama calibeyd. dadkii reer miyiga ah oo qoryaha iskala soo horjeeda is aaminsanayno geeleydii oo kala baqaysaan u tagnay qolaba mar baan u tagnay aan wacyigelinay kadib waa isku keennay heer aan waxaan geynay in qoryihi inta isku meel iska saaraan ay waxa waaye nabadii iyo baaqina la qaataan oo ayaga is aaminaan oo markaas wixii ka dambeeyey ay telefoonada kala qortaan oo xoolaha hadday iska dhex galaan baadida ay kala ceshadaan oo mararka qaar hadday rabaan isku iman karaan. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa maxamed sheekh saciid guddoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug oo marti noogu ahaa barnaamijka tubta nabadda. welina dhegaystayaal waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka tubta nabadda balse iminka aan u gudubno wareysi aan la yeelanay samsam maxamed aadan oo barnaamijyada u qaabilsan hay-adda Calmer Relief Development Organization. waxay ugu horeyn ka jawaabaysaa su-aal ku saabsan tallaabooyinka heer bulsho ee horseedi kara nabad waarta oo ka hirgasha Soomaaliya. waxaan isleeyahay horta Soomaaliya ilaa 1991 waxay tahay wadan burburay oo muxuu ahaaye dib u dhac weyn aad ugu dhacay uuna ka dhacay muxuu ahaaye dagaal sokeeyo. inta badan marka la sameynayo marka nabadeynta waxaan isleeyahay nabadeynta Soomaaliya laga sameeyo ma ahan mid si dhab ah loo abaaro dhibaatooyinkii iyo muxuu ahaaye waxyaalihii dhan. waxaan dhahnaa dib u heshiisiinaan dhahnaa wada heshiisiin. laakiin markayna waxaa la dhahaa qofka horta labadii qof in marka la heshiisiinayo in kow waxaan isleeyahay horta bal caqabadii dhibka keenta horta fast aan ogaano oon baarno. kabacdina markaasayta aan laga dhiga dhab u heshiisiin oo heshiiskan hadda inta badan Soomaaliya laga sameeyo waxaa waaye waa la heshiin intii laisku keeno haddana afka baarkiisa ay tahay si dhab in loo heshiiyo oo qof kasta wuxuu u tabanayo muxuu ahaaye ta laga xaliyo group kalena waxay tabanayaan laga xaliyo si dhab ahna inta la xalin kara laga gaaro inta kaleetana ay muxuu ahaaye iga gaaraan go'aan oo dhab u heshiisiin la sameeyo oo si sax ah loo wada heshiisiyo groupkaas. maxaad nooga sheegi kartaa istaraatiijiyadaha loo isticmaali karo si looga hortago ama loo xaliyo sideese howlahan uga qayb gelisaan odayaasha culummada iyo dadka saamaynta ku leh bulshada dhexdeeda? yani dhibaato soo socoto waxaa laga yaabaa waxaa lagu ogaanaya inta badan in muxuu ahaaye saansaan ay leedahay
la arkayo muxuu ahaayeeto laba cid ama muxuu ahaaye dad isku dhegeen oo yacni ama dhib kala gaaray laakiinse la arkayo in la isleeyahay allaylan saadaalin karnaba qoladaas haddaan hadda lasii dhex gelin waxaa ka imaan doono dagaala meesha ka dhexin doono marka meeshaas markii la taagan yahay waxaan sameynaa in muxuu ahaayeeto waxaa la sameeyaa in labadii qole midba mar lala kulmo la ogaado dhibaatadii taagneed yani dhibkan soo socdo waxaa kalifay first horta waa inaa ogaataa markaan dhibaatada ogaano qoladan waxay tabanaysa lasoo ogaado lasoo baaro haddana qoladii kale loo tago maxaa yeele labada dhinacba inaad wareysatid kabacdi ba xalka imaanaya haddana qoladii kale loo tago ayagana la wareysto suu dhibka u jiro la ogaado kabacdi waxaa la sameeya markaaseeto in muxuu ahayd markaas la gaaro xal yani qoladaaseeta in maxaa ahayd odayaal kasoo kaxaysay laftirkooda oo dadka culumada ah culumadiinkii odayaashii oo qoladaaseeta labada qolaba inaad kala adeegsatid kabacdi aan muxuu ahaayeta aan sameynaa in aan dhahno warhee dhahno dadyow dhibkaas hadda dhacay kan soo socdaa ka weyne aan saas uga hortagno aan wacyigelin sameyno aan uga hortagnaa midda kaleeto ah dhibaato taagan waxaa laga yaabaa dhibka ugu bilowdayba muddaha taagan markaan leenahay waa wuu taagan yahay wuu dhacay dalka inuu socdoba dagaalkaas markuu socdo laftarkiisa waxaa waaye laftarkeeda inaan laftarkeeda aan isticmaalno aadaan inaan haweenka is aruursano loo tago labada muxuu ahaay dadkii dagaalkii socday in la dhex galo oo la dhaho muxuu ahaay war intii dhimatay wayba dhimatay inta dambe aan badbaadine as habeen ahaan marka in dambooyinka la tuuro oo la dhaala yacni intaa dhibkan sii socon lahaa anagaa muxuu ahaayeto inaan ku dhimano aadhaan markaasaytan aan saas ku joojino dhibkii socday maxay tahay sababta aad u aaminsan tahay in ka qaybgalka haweenka ee dhisidda nabadda uu muhiim ugu yahay Soomaaliya maxayse tahay awoodda gaarka ah ee ay haweenka ku biirin karaan hanaanka nabadda marka la arkay dadka dhibaatada ugu nugul ay yihiin dumarka ayaa waxaan dumarkii nagu qasbay inaan soo baxno annaga aan wada heshiisiintii aan ka qayb qaadano muxuu ahayd waxaan isleeyahay dumarka heshiisiintu way ka qayb qaadan karaan waxaa jira barnaamijyo hore ay ka qayb qaataan xataa marka waxaan isleeyahay haddii haweenka ay ragga u ogolaadaan inay miiskooda hadalka wax ka siiyaan oo muxuu ahayd go-aan qaadashadan wax ka siiyaan waxaan isleeyahay dumarka waxay yihiin dadka ugu badan ama dadka ugu habboon muxuu ahaayeto wada heshiisiinta gaaraya markaas saas leeyahay waxay tahay horta heshiisiinta wuxuu ka imaadaa qofka dhibka uu gaaraya inta badan saa ognahayna dumarka waxaa waaye dadka ugu nugul ama ee dhibaatada gaarta markaas waxaan u leenahay dumarka way ka qayb qaadan karaan heshiisiinta wayna weliba ooga mudan yihiin ragga markii loo fiiriyo heshiisiintaas maxaa yeele waxaa ku jira wiilashoodii waxaa ku jira muxuu ahayd nimankoodii waxaa ku jira walaalahooda ku jiro marka iyagoo saddexdaas qayba ayaga ay ka hor imaanayaan waxaa hooyadii walaalkeed iyo waxaa iska soo horjoodi kara ninkeedii marka muxuu ahaayey dhexdeedii waxay ka samayn kartaa inay walaalkeedna u tagto ay dhahdo walaalama wiilkayga maanta aad dagaal la gelaysaayo muxuu ahaayey animaad isamaynaysaa isi wiil-aan dhigaysaa wiilkeedana la hadasho dhah walaalama walaalkay maanta dilaysaa karabkeygii uu walaalkii lahaa baa dilaysaa marka dumarkan saa ognahay way ka qayb qaadan karaan heshiisiinta aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd samsam maxamed aadan oo barnaamijyada u qaabilsan hay-adda calmo relief development organization oo marti inoogu ahayd barnaamijka tubta nabadda balse iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan hees ka hadlaysa muhiimadda ay nabaddu leedahay
waa hagaag dhegeystayaal aan intaas uga gudubna heestaasi ka hadlaysay muhiimadda nabadda waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan